kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ahaantiinba ku soo dhawaada meel walba adduunka ka joogtaan waxa idin leenahay galab wanaagsan ama galab qurux badan insha Allah maanta meeshan waxa iskugu soo baxay dadweyne Soomaali ah oo habla iyo nimaba iskugu jiro halkaas ay ugu soo dhaweynayaan walaalkood ka soo socda dhankaas iyo carigaas iyo Nairobi oo soo gaari doona galabta insha Allah halkan iyo Kampala dadkaas waxay soo dhaweynayaan ama ay taageersan yihiin ama ay shacabka ka mid yihiin daawada wiilkaas la yiraahdo Cabdixakiin oo ku magac dheer Jam Films waa wiil dhalinyaro ah oo maasha Allah talent leh oo maalmaha dambaba ayaantan dambe nala joogi doona halkan iyo Kampala insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu asaguna Kampala uu kala kiciyo insha Allah daawasho wacan waa isla soconeena waxaan soo gaarnay meeshii lagu soo dhaweynayay ama lagu sugayay walaalkeen Cabdixakiin Jam Films haddana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan la dhex qaadi doono labo ama saddex kamid ah dadka soo dhaweynaya ma dheer bidaan waxaan ku suganahay wadanka Uganda caasimada Kampala maanta waxaan taaganahay aan soo dhaweynayaa walaalkay qaaliga garabkeena ah Cabdixakiin oo kuma dheer Jam Films waxaan leeyahay walaal qaali ku soo dhawaaw wadankan Uganda caasimada Kampala waan ku jecelnahay adaan nahay baada ku sugan Uganda ما شاء الله magacaygu waa Nashaad waxaan soo dhaweynayaa walaalkay Jam ku soo dhawow walaal Kampala adigaan ku suganaa imikana ما شاء الله looma kala harna haddana waxaan soo gaaray insha Allah wiilkan sugaynay Cabdixakiin Jam Films walaal waxaan ku leenahay soo dhawow dad ku jecel iyo qalbiyo ku jecel ku soo dhawow soo dhawow ما شاء الله meel laga jecel yahay dad ka soo tagtay waxaad timid meel kale oo laga jecel yahay dadku waa dadkaaga ما شاء الله marka asxaabay haddana waxaan la jaan qaadi doonaa ama mikrofoonka la dhex qaadi doonaa dadweynahan doona insha Allah ayuu walaalado magacaaga ku kale laabniyo walaalkeen ku soo dhaweynaa halka ku soo dhawaad gacan fur walaalkii ayuu walaalado magacaaga ku bilaabaya ما شاء الله magacaygu waa Abdirxiin oo ku magac dheer Titanic aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhameeyay walaalkayga Jam Films waana salaamay asxaabtiisa Jam Films oo badan aan ku xiranay YouTube kamid ahay dadka oo macnaha taageero qaas u ahay soo waxa farxad inaad sawirnimada og yahay soo waxa leeyahay ما شاء الله maxaa ka fiican taageernimo lagu og yahay wax ka fiican ma laha soo dhawow walaal waa dhawahay hadaan aragteen waa dhawahay walaalkay qaaliga Cabdixakiin Jam Films inta badan waan ognahay adaan nahay bahda ku sugan Kampala waan jecelnahay xaqiiqada taan kala hadlo YouTube kiisina waa ku xirnaay mar walba daawada habeenkii ana daawana dad seexdo waxa isku maleeyaa in xanuunsanahay ma fahanteen waxa la walaalkii qaaliga ku leeyahay hormar waxaan leeyahay soco keep guul leeyahay aniga familkeyga oo taageerna waan ku jecelnahay wax ku leenahay walaalkii qaaliga tahay qofka u dayada tahay oo ku dayana wax ku leeyahay macaan hor soco keep going ما شاء الله waxa wax lagu farxo ama waxa wax lagu taamo ama qof walba uu jecel yahay in famil wiilkii aabihii yaraankii iyo kii ugu weynaaba uu daawanayo waxaas wax lagu farxo ayuu walaalkii magacaaga ku bilaabay waa Nashaad waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Jam abo macaan waxa ku nahay taageero buuxda taageernaa maanta waxa weeyaan lama noolaan karo ما شاء الله looma kala harin shucuurtaadu say tahay hal yallo walahi lama soo koobi karo waayo waxaan hortaagan maanta Jam oo in badan ku aaminay inuu soo istaago ما شاء الله halkaas waxaad ka dareemaysaa Cabdixakiin Jam in la sugayay waqti badan oo uu soo daahay masdhii karna aad iyo aad
waqtigaa rabna waa kasoo dib dhaca maasha allah soo dhowow ayaa ku leenahay walaal magacaaga adoo ka bilaabay walaal magacay waa Marwan oo maanta halkan soo istaagay walaalkay Jam oo muddo badan isku kala dambeysay laakiin maanta wuxuu yimid wadankayga Kampala caasimadayda maanta ku soo dhaweynaya fadhigaagu kugu yimid aad iyo maanta fadhigayga talo baayna soo dhaweeyaan waka fadhiga maanta maasha allah hadda waa uga kacdaan dareemaya aad iyo anu taagan maanta walaalanka hadan waa u yimid oo galabkaygu taagay wiil joogaan walaalkay maasha allah walaal laba magacaaga ku bilaabay magacayga waa Suudi meeshan waxaan ku soo dhaweynayaa maanta walaalkay Jam meeshan waxaan ku soo dhaweynayaa maanta walaalkay Cabdixakiin Jam Films waxaan leeyahay walaalkay welcome in badan ku soo dhawo magaalada dadkaaga iyo familkaaga u timid baan dhihi karaa maasha allah aad ugu faraxsanahay ku aragno maasha allah shalay dad ka soo tagtay familkaagii maantana waxaad u timid ayaan dhihi karnaa familkaagii ilaaha dadkaaga badiyay hayo walaal aba magacaaga ku bilaabay waa Cabdifataax oo ku magac dheer Haris waxaan ku soo dhaweynaa Cabdixakiin Films ku soo dhawow Kampala waa dadkaadii waa familgaadii ku soo dhawaad ku dhiilay walaal qaali hayo walaal aba magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Sakariya Cabdi Cumar Soomaalida oo taqaan Caliha horta marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ma iska noo soo gal in halkaan isugu imaano marka labaad waxaan soo dhaweynayaa walaalkayga Cabdixakiin Jam Films aad ugu faraxsanahay walaalkayga ma aragtay ina kula kulmo farxada ii tahay welcome to Kampala mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad buu soo dhawo kulay walaalkay Jam Films waan isku dambeyn doonaa insha Allah haddana waxaan la wadaagi doonaa ama aan mikrofoonka ku wareejin doonaa walaalkeen amaanta qorraxdan u taaganahay oo nala wadaagi doona insha Allah wuxuu Kampala ka damacsan yahay iyo qorshayaashu u imaaday iyo inuu nala joogi doono laba hameen uu naga laaban doono iyo inuu nala joogi doono bilooyin ama wixii ka badanba waan jeclaan lahayn inuu nala joogo bilooyin ama sanado waayo waxaad ka dareemi doontaa waxaad ka dareemi kartaa dadkan soo dhaweeyo u soo baxay oo qorraxduna xoogaa yara kulushahay hayo walaal soo dhawow السلام عليكم taageerayaasha ku sugiyin Soomaali Maxamed maanta farxadii lama soo koobi karo waayo waxa arkay dad aad ii jecel oo maaragtay darteeda qorax u istaagay dad ii soo dhaweeyay dad ii istaagay fadhigeyga kacay maasha Allah walaalkaas maanta farxadii lama soo koobi karo maasha Allah marka magaalada dareemaya maalmahan ayaad soo gashay oo xoogaa wajigaaga waxa ka muuqatay inaad dalxiis baad u timid maarimo family baa u timid hal iyo labo horta inuu dalxiis noogu imaaday asxaabta aniga ugu xiran iyo Kampala sida aan ku ahay iyo meesha aan ka joogo ina ogaadano maantana waa ogaaday in maaragtay li istaagayo oo meeshii lagu arko maanta nin la xushmanayo ahay xushmadaasna waxaa ku gaaray walaalahayga garabkayga soo istaagay haddayna ayaga subscribe isiin lahayn aniga maanta saan liima xushmeeyeen fahamte boqolkiiba boqol waxaa ugu mahadcelinaa Soomaali Maxamed meel walba joogto inaa fadhigooda ugu tegi doono oo aan maaragtay wixii taageero anigana aan taageeri doono maasha Allah marka arrintan YouTube-ka goormay kugu dhalatay inaad samaysato challenge adiga kugu gaara horta marka hore ana asxaaba wax la qaybsan jiray asxaabtii maaragtay waa iska fahmi kartaa nin wuxuu leeyahay haddii amaanta dukaan uu qafri uu leeyahay hadaa ka shaqeysto lagu ereeyahay maanta shaka kaaga ma jiro marka niyo wallahi YouTube-ka waa jeclaa marka hore waxaa jeclaa inaad fanka dhinaciisa u bato saasay tahay actornimada niyo ku soo baxay actornimada qabsaday hadda booska actornimada cid inay iga xagsanaysa ma malaynayo maasha Allah kaale iska arag inaan reer Kampala u kala kicin doonto said Kampala walaalahayga gabdhaheena dhammaan oo kala kicinaa wixii aniga oo garab iga soo baxdaan garabkooda la istaaganahay sida ay garabkayga u istaageen waayo aniga waxaa jira dad badan oo meeshan aqoonin iyo dad aqoon maaragtay isku jiraan dadka aqoonin dhisan doona waayo qofka hadaa siduu ku qadiyo aadna u qadariso maasha Allah bro meesha sidii ay wax rabeen wax walba u dhacayaan waxaan rajeynayaa maalmahan reer Kampala inaad la soo wadid filmaan qurux badan inkastoo baraha dadkii kugu xirnaa YouTube-kaaga bartaada YouTube-ka dadkii kugu xirnaa labadan maalin safar aad ku soo jirtay inaad waxba la wadaagin horta niyo been maahan maanta YouTuber badan meesha ay ugu soo dhaweeyeen YouTuberaas waxaa ugu jecel Kampala media ayadana sida camal meesha waa ka salaamaya saaxiibkayga DJ Fana asigna salaam boqortooy u geeyna faante ilkaas adiguna baraha boqolkiiba boqol oo ku salaama sida sharafta la ay soo dhaweysay oo maanta aad halkaan isku soo xirtay hogaamiyaha meesha ku noqotay boqolkiiba boqol kaaga mahadcelina baraha marka waxaan ku leeyahay tayada ugu dambaysa su'aasheeda ugu dambaysa ku weydiinayo dadka reer Kampala maxaad u soo wadaa hal iyo labo Kampala waxa uu soo wadaa horta filimada jaceylka ay ugu barateen xataa film action soo socdo film horror soo socdo waxa ka tagayna wala insha Allah ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وحا سعبك سيا سعبك وحا لغو فرحو وح عن لما ليسن كرين إن أمانتنا لجوغو ولكن عبد الحكيم oo ah taageero weyn ma sha Allah waa wiil qalbi wanaagsan
wuxuu kaluu ku leeyahay qof walba oo taageeraya waxaan rabaa in aan ugu tago fadhigiisa waxaan ku leenahay walaal har iyo habeen waa kuu taagannahay maalin iyo habeenna waa kuu taagannahay marka insha Allah waxaan sugnaba waa filmaanta uu soo wada quruxda badan sida kale waxa ugu barateen waa filmaan jacayl ah waa filmaan romansiya waa filmaan macnaha ayadoo romantic la jilayo ayaana dhaqankii la ilaaliya marka waxaan leenahay walaal qaali ku soo dhawo Kampala